madaxweynaheena soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow suuradaada waa lagu farxa sama iyo gargaar wado suuradaada waa lagu farxa sama iyo gargaar wado سماها ودي صومالي ذا مذيايو كي سماها ودي صومالي ذا مذيايو وكنت بسعوناي سورة القرآن وذا مريي صوما جستيهيو صومالي ذو أسيمان تايو سفر كاقو وقيري يا سماد برواقا ذي صدوو صدوو madaxweynaheena soo dhawow soo dhawow soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow mataan sanada badan silciyo dib soo marayay mataan sanada badan silciyo dib soo marayay adigay ku sugayaano ku sacabatumayaan madaxweynaha runtii waa asaga u soo horeeyay ufuudii madaxweynayaasha dawlad goboleedyada si sharaf leh ayaana loo soo dhaweeyay madaxweyne soo dhawow runtii sharaf ay noo tahay maanta inaad aan halkan kugu soo dhaweyno adigoo u yimid bilaabayna madaxweynayaasha dawlad goboleedyada oo ka qayb galaya shirka wada tashiga qaran ee ka dhacaya biri iyo saadambe maalmaha soo socda magaalada Muqdisho oo aan rajaynayno dadka Soomaaliyeed ay aad u dhowrayaan natiijo wax ku ool ah iyo muwaafaqo inuu ku dhamaado madaxweyne soo dhawow waan idinka mahadcelinayaa soo dhaweyntiina iyo qaabilada aad maanta xildhibaanada iyo senatarada iyo wasiiradaba soo dhaweynta aad noogu samayseen magaalada Muqdisho garoonka aad baan ugu faraxsanahay inaan noqdo kii ugu soo horeeyay iyadoo shir oo ka dhacayo waxa ugu muhiimsan ee shirkaasi 1 2 3 4 ugu horeynaya taarinta amniga iyo talaabooyinka maanta reer beledweyne iyo reer cadaadi ay qaadayaan in deegaanada kalena iyadoo laga bilaabayo aan isku tashi sameeyno bal shabaab iyo go'aanka laga gaar lahayo sidii loola dagaalami lahaa iyadoo aan lahayn hadda dadka ay sabablaan oo qori qaado bal intii wixii la habeeyo dagaalkaas sidaan ujeedadiisa u gaar lahayn saaxiibada iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka kulmi doonana waxa ugu muhiimsan waxay tahay marxaladda maanta waddanku ku jiro sidaan uga gudbi lahayn in la gaaro oo aan isku tashano qof walba hadda wuxuu leeyahay Soomaalidu iyadoo ay isku tashato isku tashigan wuxuu keenay inaan inagu go'aan gaarno inagu wax qabsano cidii waxna la qabanaysa markaas waxna la qaban kartaa marka wasiir aad baad u mahadsantihiin shaqo badan baa idin taalmaantana waa daalaysaan khayr badan waa idin rajaynayaa shaqadaasna muhiimadda shirkaygu waa inaan isweydiino bal fadhigiina laga kaco taagtaag badanna ma jiray waddankan hore loo riixo shaqo xoog lana la qabto aad baad u mahadsan